السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود كسر وهذا channel كنا سويال كميدي يا مانتن وحكسو قادة دونا برنامج كنا تاريخ نولد كي شلاق عان كرفقان وكجريو دالكاس هندية حتى بقول ما يودو شيء مسعرون أيو لها برنامج كنا أياكم مقل دونتان توسعدو جلاق عان كرفقان ولو تري مد كمية جلاش بولود كو قاب كجيلن كوناكسن أيال الحقيقي جري ديسا وحون كجريو إسبيتال كويا لمنباي رفقان أيا إسبيتال ككل بين لديجي ولي بقيب تجرجار كدق دجاه مادام حالة ديساد وعلوساد وحنا لقى هلا ديفشيت كو عبوك كدعي دنك كالي رفقان afal maalin ka hor ayaa geeriyootay hooyadiis kadibna jilaagan xanuun ayaa ka bilowday geerid hooyadiis kadibna sida la sheegay rifqan waxa uu ifka kaga tegay laba wiil oo lagu kala magacaabo Kaabil Qaan iyo Ayaan Qaan isagoo 53 sano jir ah ayuuna geeriyooday jilaagan aad ka loo jeclaa geeridiisa ayaa Indiya oo dhan iyo daafaha caalamka waqtigan laga hadlayo oo aad looga naxsan yahay muddo gaaban ka hor ayaa rifqan ka soo laabtay cudurka kansarka wuxuuna ku soo laabtay shaqadiisa filimjilista filimkiisii ugu dambeeyay waxa uu ahaa Anchariza Medium oo laga daawaday bishii Maarso waxaana xusid mudan in maalintii labaad ee filimkan tiyaatarada saarnaa albaabada loo laabay guud ahaan tiyaatarada oo dhan oo bando ayaa la geliyay Indiya oo dhan oo coronavirus dartiis directorka ayaa bartiisa Twitterka ku shaaciyay geerida rifqan oo reerkiisa ayuu tacsi u diray guud ahaan intaas ay kusoo gabagabeynayna barnaamijkeena oo aan ku soo qaadanay maanta jilaanka weynka oo caanka ah rifqan oo taariikh nololeedkiisa aan ka sheekeynay halkaan magacaygu waa Maslaan Siib waxaan kaga tagay sidaas iyo amaan Allah